Su'aal nooga timid asxaabta nagu xiran waxay leedahay waxaan isku arkay markaan sujuudo ama yara foorarsado xididada qoorta ayaa i buufsamo madaxana culays baan dareemayaa inuu dhiig igu soo shubmayo camal xataa markaan jiifsado waan dareemaa sidoo kale labada gacmood xididadooda aad ayay i buuxsamayaan arrintaas maxaa keeni karo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa Dr. Mahdi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End ciladan waa mid halis ah waxayna tilmaan u tahay dhowr cudur waxaana afka qalaad lagu dhahaa bentopnia oo macnaheedu yahay in naqaska kugu dhago markaad foorarsatid waana qaabka uu u sharxay qofka su'aasha noo soo diray ciladan waxay timaadaa markii cadaadismaan xididada qoorta ku jira oo madaxa aada ama kuwa wadnaha ka soo baxa oo dhuunta soo gala waxyaabaha keeni karana waxaa ka mid ah 1 bararka iyo howlgabka wadnaha 2 qolfoofida sambabada afka qalaadna lagu dhaho pulmonary fibrosis 3 barasharka xididada wadnaha oo kaco ciladaas oo loo yaqaano pulmonary arterial hypertension 4 burooyinka ka soo baxa dhuunta ama xabadka kuwaas oo cadaadiya halbowlaha weyn ee superior vena cava 5 cilada naqas ku dhaga hurdada loona yaqaano obstructive sleep apnea midda lixaad waa cayilka xad dhaafka ah oo isagana lala xiriiriyo ciladan intaasba waa cudurro halis ah sidaas awgeed qofkii isku arka astaamaha kore waa in si degdeg ah ula xiriiraa dhakhtar ku takhasusay cudurrada wadnaha oo aad xarumaheena ka heli kartid haddii aad u baahatid fadlan faafi fariintan waana mahadsantahay